kulan wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin haysta waxaa u daroon gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre oo isbahaysi la sameynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kulan ka dhacay filla Soomaaliya. Sheekh Cali Wajiis oo xukuumadda ku eedeeyay inay caqabad ku tahay xajka. Baarlamaanka Carbeed oo la saftay Soomaaliya. Xog habargidir oo dhabarjebin xoog leh ku sameysay qorshihii farmaajo iyo qeyrre. Puntland oo sheegtay inay fashiliyeen qarax miino. Mareykanka oo dowladda federaalka Soomaaliya ku taageeraya dagaalka maamul goboleedyada. Yusuf Garaad oo dowladda federaalka ku yeeraray warqadii ay soo saartay. Shacabka Somaliland oo raadinaya madaxweyne la mid ah Daahir Riyaale. Kenya oo ku jirta Rio Mobile iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo bahdishay dowladda Kenya. iyo Djibouti oo laga furay shaleemadii ugu horeysay oo casri ah. wararka dibadda ee warbaahinta isha wararka daawadayaal idin haysta waxaa u dooran madaxweynaha Shiinaha oo markii ugu horeysay booqday Kuuriyada Waqooyi iyo bastoolada isku dilay nin caan ah oo lagu kala iibsaday $100,000. waa hagaag daawadayaal kulan wacan meel kasta oo joogtaan haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe dheh oo rukumo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya markaan soo galino barteena YouTube-ka hana moogaan in faalad ka bixisid ku aadan wararka aan halkan soo galino. aan ku bilowno daawadayaal gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre ayaa la sheegay in isbahaysi uu la sameeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib kulan ka dhacay sida la sheegay filla Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo maalmihii ugu dambeeyay ku maqnaa boqortooyada Sacuudiga ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxaana uu kadib kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlay arrimo dhowr ah balse ma uusan cadeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen. waxaan caawa la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib maalmihii la soo dhaafay oo aan dalka uga maqnaa cumro waxaana maalmaha soo socda dib ugu noqon doona deegaanada Hirshabelle ayuu gudoomiye Ismaan. hase yeeshee shabakadda isha wararka oo ah shabakadda koowaad ee warbaahinta Soomaalida ayaa ogaatay in gudoomiyaha baarlamaanka uu madaxda dalka kala hadlay sidii looga caawin lahaa dhaminta hay'adda cusub ee ka dhex dhalatay baarlamaanka Hirshabelle. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa doonaya dhaqaale oo ku kala furfuro xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ee sida weyn u mucaaraday fariin uu dhowaan u diray oo ku aadaneyd inay fasax ka yihiin kulamada baarlamaanka. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle iyo xildhibaano badan ayaa sheegay inay guddoon cusub dooran doonaan haddii uusan si dhaqsi ah ugu soo laaban Jowhar. gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa saaxiib dhow la ah madaxda nabad iyo nolol ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. weli daawadayaal waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka fadlan rukumo si aad wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka u heshid oo guji gambaleelka subscribe-na dhehan mugan sidoo kale like inaad saartid asxaabtaadana aad share u tiraadid oo aad la wadaagtid. xog ayaa sheegaysa in beesha habargidir ay dhabarjebin xoog leh ku sameysay qorshihii madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre. kulamo gaargaar ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho bilowga bishan isla markaana ay yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha habargidir ayaa lagu joojiyay dhammaan rajadii iyo qorshihii dowladda Soomaaliya ay ka damacsaneyd Galmudug. odayaasha beelaha Sacad, Cayr, Duduble iyo Saruur ayaa la kulmay odayaasha beesha reer Xaaji Saleebaan waxayna kala hadleen qodobo ku saabsan mideynta habargidir iyo ka hortagga damaca dowladda Soomaaliya ee qabsashada doorashada Galmudug sanadka 2019. beesha reer Xaaji Saleebaan ayaa laga dalbaday in cadaado aysan ka dhicin doorasho ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan deegaanada Galmudug. dowladda Soomaaliya ayaa waday qorshe doorashada Galmudug ah waxayna rabtaa inay ku qabato magaalada Cadaado maadaama aysan tagi karin Dhuusamareeb. hase yeeshee odayaasha habargidir oo dhan ayaa ku heshiiyey magaalo ka tirsan Galmudug inaysan doorasho ku qaban karin dowladda Soomaaliya taas oo lagu sheegay burburinta dowladda Galmudug. Cadaado oo ay degto beesha Saleebaan waxay ahayd meesha kaliya ee looga cabsi qabo inay doorasho ka dhacdo. hase yeeshee habargidir ayaa sirtaag ku sameysay qorshihii dowladda Soomaaliya. beelaha habargidir ayaa ku heshiiyey inay shir ku yeeshaan magaalada Hobyo bisha dhalan doonta ee Luulyo waxaana halkaas lagu dhameyn doonaa dhammaan tabashooyinka ay iska qabaan beelaha habargidir. sidoo kale waxaa looga hadlayaa aayaha Galmudug iyo sidii dadkeeda loo mideyn lahaa waana sababta keentay in beesha reer Xaaji ay ogolaadaan in cadaado laga soo dhaweyn qorshe kasta oo aysan habargidir u mideysnayn.
dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka taageerayso dagaalka ay kula jirto maamul goboleedyada dalka. dowladda Mareykanka ayaa Isniintii dib u furtay xafiiska hay'adda USAID ee Soomaaliya kadib 28 sano markii ay u xirtay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka qarxay. Go'aanka dib loogu furay howlgalka USAID ee Soomaaliya ayaa sida ay sheegtay USAID waxaa horseeday dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sameynayso isbeddello macno leh isla markaana ay dib ula macaamilayso beesha caalamka. hase yeeshee go'aankan ayaa sidoo kale waxaa ku lug leh arrimo siyaasadeed sida uu sheegay Matt Braden oo ka tirsan hay'adda cilmi-baarista sahan ee diiradda saarta Soomaaliya. Braden ayaa tallaabadan ku qeexay mid lagu xoojinayo colaadinta ay dowladda federaalka ah ku hayso dowlad goboleedyada. Maamulka hadda jira wuxuu muujiyay nidaam dowlad dhexe ay awoodda leedahay oo kala talis ah oo ku wajahan maamul goboleedyada, taas oo gees u riixday inta badan maamul goboleedyada, ayuu yiri Matt Braden. In xafiiska USA laga soo wareejiyo Nairobi oo la keeno Muqdisho waxay sare u qaadi kartaa xiisadda ka dhex oogan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sida uu qabo Matt Braden. Sida uu sheegay Braden, marka la eego dalalka reer galbeedka, dowladda Mareykanka waxaa loo arkaa tan taageerada ugu xooggan u muujinaysa nidaam ay dowladda dhexe awood leedahay, taas oo dhiirigelinaysa in dowladda federaalka ah ay dareento inay iska indhatirto dastuurka ku-meel gaarka ah iyo sida ay doonto ka yeeli karto maamul goboleedyada. Furitaanka xafiiska USAID waxay xoojin doontaa aragtida ah in dowladda federaalka ay taageero xooggan gadaal ka haysato isla markaana ay helayso taageero maaliyadeed oo ay isku halayn karto, ayuu yiri Braden. dowladda Mareykanka ayaa ahayd dowladda kaliya ee taageerada u muujisay dowladda federaalka ah markii bishii Janaayo ay risay ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom, xilli inta badan dalalka Yurub ay ka caroodeen tallaabadaasi. weli daawadayaal waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. fadlan rukumo si wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya uu ku soo gaaro, oo subscribe dheh, baleelkana guji, saaxiibadana share u dheh. baarlamaanka Carabeed ayaa waxaa la sheegay inay la safteen Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka Carabta ayaa waxaa taageero loogu muujiyay Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo xilligan muran khilaaf badan dhaliyay oo la xiriira dhinaca badda uu kala dhexeeyo dowladda Kenya. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya la dhowro midnimadeeda, nabadgelyadeeda, sidoo kalena dowladda Kenya loogu baaqay inay faraha kala baxdo biyo goboleedka Jamhuuriyadda Soomaaliya. baarlamaanka Carabeed waxa uu taageerayaa Jamhuuriyadda Soomaaliya si loo dhowro midnimadeeda, nabadgelyadeeda, degenaanshaheeda, badqabka dhulkeeda, xorriyaddeeda, milgaheeda berri, bad iyo cir. waxa uu ugu baaqayaa Kenya inay faraha kala baxdo biyo goboleedka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah qayb aan ka go'ayn biyaha Carabeed oo lama taabtaan ah. waxa uu ku gacan saarayaa sheegashada beenta ah ee ah calaamadeyn cusub oo raad lahayn, xaqiiqdana ka fog. sidoo kale waxa uu ganafka ku dhufanayaa hanjabaadda faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha Soomaaliya iyo ku tumashadeeda mabaadi'da daris wanaagga iyo heshiisyada caalamiga. baarlamaanka Carabeed waxa uu ugu baaqayaa wadamada Carabeed ee xushmada mudan inay garab istaagaan Jamhuuriyadda Soomaaliya oo tallaabooyin wanaagsan u qaadaysa dhinacyada ammaanka, degenaanshaha iyo ka takhalusidda argagixisada iyo waxyaabaha ka hor imaanaya xuquuqul insaanka. daawadayaal waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. Sheekh Cali Maxamuud Xasan Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed sida weyn u taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah guddiga arrimaha xajka loo xil saaray, iyo xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay inay caqabad ku tahay in sanadkan Soomaaliya aadan xajka. qoraal dheer oo soo qoray isla markaana uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku soo bandhigay ilaa 3 qodob oo keeni karta in sanadkan Soomaalida ka baaqato xajka isla markaana uu ku murugsan yahay. waxa uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid aad khatar uga ah in Soomaalida sanadkan ay xajka aadi waayaan. xukuumadda Soomaaliya ayaan ilaa hadda wax jawaab ah kuma soo bixin warkan ka soo yeeray Sheekh Cali Wajiis oo ka tirsan culimada sida weyn u taageersan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana wasaaradda diinta iyo awqaafta ay horey u soo bandhigtay 58 shirkadood oo uu ku guuleystay inay sanadkan xujayda qaadaan. Puntland ayaa sheegtay inay fashilayeen qarax miino. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxaa la sheegay inay soo saareen miino lagu aasay agagaarka dhismaha Fadhiisame oo u dhow isgoyska Gaaca ee magaalada Boosaaso.
saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah bulshada magaalada Boosaaso ay ku soo wargeliyeen miinadaas goobta lagu aasay, islamarkaana ay ciidamada ku guuleysteen inay soo saaraan. Intii uu socday howlgalka miinada lagu soo saarayay ayaa ciidamada Puntland waxay xireen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa suuqa bartamaha magaalada Boosaaso. Saraakiisha ciidamada Puntland ma sheegin dadka ka dambeeyay miinada halkaas lagu aasay, sidoo kale ma jirin dad loo soo qabtay miinada lagu aasay agagaarka suuqa bartamaha magaalada Boosaaso. Si kastaba, bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ka dhacay qaraxyo miino oo mid ka mid ah lala eegtay gaari uu lahaa gudoomiyaha gobolka Bari, hase yeeshee xilligaas uusan saarneyn. Daawadayaal, waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. Yuusuf Garaad oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ku weeraray warqadii ay dhowaan soo saartay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay war-saxaafadeed ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ay ka soo saartay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug. Yuusuf Garaad ayaa waxa uu sheegay in uu bogaadin lahaa haddii dowladda federaalka ay hal warqad ku xalin karayso muranka kala dhexeeya maamul goboleedka Galmudug iyo weliba muranka ka dhex taagan gudaha maamulkaasi. Hadalka Yuusuf Garaad ayaa u muuqda mid uu ku dhaliilayo sida ay xukuumadda madaxweyne Farmaajo maaro ugu weyday xalinta khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada dalka. Yuusuf Garaad ayaa arrintan kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, waxaana uu ku yidhi: waan bogaadin lahaa dowladdu haddii muranka iyada kala dhexeeya Galmudug iyo Jubbaland iyo muranka mid kastaba gudaheeda ka jira ay ku xalin kari lahayd hal warqad oo ka soo baxday caasimadda, laakiin waxaan markaas dowladda ku dhaliili lahaa soo daahidda warqadda. Daawadayaal, waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. Shacabka Somalilan ayaa raadinaya madaxweyne la mid ah Daahir Riyaale Kaahin. Suldaan Aadan Faarax Cumar oo ka mid ah madax dhaqameedka Somalilan ayaa ka hadlay doorashooyinka Somalilan ee xilligoodii muddo dhacay, isagoona baaq u diray xukuumadda Muuse Biixi iyo xisbiyada ku muransan doorashada. Suldaan Aadan ayaa sidoo kale madax dhaqameedka iyo salaadiinta Somalilan ugu baaqay inaysan ku milmin siyaasadda balse ay ka qayb qaataan sixidda wax kasta oo qalloocda. Suldaanka ayaa madaxweynihii hore ee Somalilan Daahir Riyaale Kaahin ku ammaanay doorashooyinkii kala duwanaa ee uu waqtigeedii ku qabtay xilligii uu hayay talada Somalilan. Daahir Riyaale Kaahin waxa uu ka mid yahay madaxweynayaashii ugu wanaagsanaa ee dalka soo maray, maxaa yeelay intii uu talada dalka hayay doorashooyinkii kala duwanaa ee qabsoomay si fiican oo nabadgelyo ku dheehan tahay ayay u qabsoomeen. Markii talada dalka laga guuleystana si sharaf iyo maamuus leh ayuu xilka madaxweynenimo u wareejiyay. Maamul kasta oo dalka xilka ka soo qabtana waxaa looga baahan yahay inuu ku daydo Daahir Riyaale, ayuu yidhi Suldaan Aadan. Madax dhaqameedku doorkooda u muuqda, waxaana looga baahan yahay inay mar walba isku duubnida iyo midnimada ummadda ka bataliyaan kana shaqeeyaan. Waxaa looga baahan yahay in wixii qaldan ay saxaan. Madaxda dhaqameedka waxaa looga baahan in aanay ku milmin siyaasadda, saxaana wax kasta oo inaga qalloocda, ayuu yidhi suldaanka. Wuxuu intaas ku daray, xukuumadda mar walba waxaa looga baahan yahay inay ku dadaasho sidii ay dhalinyarada kala duwan ee dalka ee jaamacadaha ka soo baxaysa inay meeleyso oo ay jihayso, islamarkaana shaqo abuur u sameyso. Anigoo xukuumadda ugu mahadnaqaya barnaamijka ay wado ee shaqo qaran, waxaan leeyahay xisbiyada inuu khilaafkiinu sii jiitamo ma aha ee wax walba waa laga qeshiyaa ee isku yimaada, wadatashi iyo wadajir arrimaha aad isku haysaan ku xaliya, kuna dhammeeya waqtiga uu isguraya. Xisbiyadu khilaafkooda si wadajir ah ha u soo afjaraan oo heshiiska madambeys ha gaaraan, ayuu hadalkiisa ku soo koobay Suldaan Aadan. Kenya ayaa ku jirtay riyo rumowla, iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bahdishay Kenya. Markasta oo xukunka dacwadda uu soo dhowaado, xiisadaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii kordhaya. Haddaba waxaa mudan in la isweydiiyo, Kenya ma aqbali kartaa in riyadeedii ahayd inay boobto Soomaaliya ee rumowla lahayd? Kenya iyo Soomaaliya waxay Nairobi ku siixdeen Abriil 7, 2009 heshiis is-afgarad ah oo ujeedadiisu ahayd in midkoodna midka kale uusan ka hor istaagin no objection gudbinta dalabka qalfoofta. Nairobi waxay gacantogaaleysay kalsoonidii kadibna riyadeedii u rogtay heshiis xeerinaya soo hodinta badda ee labada dal.
Gudubkaas wuxuu dhacay kadib markii baarlamaanka Soomaaliya uu cod buuxa heshiiskii Nairobi kaga dhigay wax aan jirin null and void Agoosto 1, 2009. Intaas waxaa dheer in Kenya 2012 si sharci darro ah u bixisay rukhsooyin lagu baarayo 8 waaxood oo ku yaal aagga badda Soomaaliya oo Kenya ay sheeganayso hadda, iyada oo qaar ka mid ah ay kala siisay Ina Energy, Talyaani Total, Faransiis iyo Androco Petroleum, Oil and Gas Journal oo Mareykan ah. 2012 bishii 6 27. Si kastaba, Muqdisho waxa ay tan iyo 2012 isku taxalluujinaysay wadahadallo xal-doon ah, balse dadaaladaas lama kulmin niyad wanaag iyo laab-qaboojintoona. 5 sannadood oo meermeeris ah kadib, 28 Agoosto 2014, Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay ka fursan weyday inay maxkamadda ICJ horgeyso dacwad ka dhan ah Jamhuuriyadda Kenya si ay go'aan uga gaarto xuduud badeedka labada dal, iyada oo la raacayo qaanuunka badaha caalamka. Febraayo 2, 2017, maxkamaddu waxay diiday marmarsiyadii hore u dhaca ahayd ee dowladda Kenya. Maxkamadda ICJ waxay awood u leedahay inay soo saarto qaraar kama dambeyn ah toddobaad kadib markii dowladda Soomaaliya ee London ku soo bandhigtay macluumaadka saxminta soo saarista kheyraadkeeda. Dowladda Kenya waxay bilowday caraatan iyo colaadin hor leh, inkastoo Soomaaliya ay u xaqiijisay inaysan qaadin tallaabo wax u dhimi kara dacwadda, kuna kalsoon tahay maxkamadda ICJ. Sideedaba, Nairobi waxaa caado u ah inay ceebeyso xukunka maxkamadaha caalamiga ah. Sida muuqata, waxay bilowday carqaladeynta garsoorka iyada oo faro ku fiiqayso gudoomiyaha maxkamadda garsoore Cabdiqawi Axmed Yuusuf. Maxkamadda ICJ waxaa fadhiya 15 garsoore oo caalamka looga soo doortay si waafaqsan qodobka 2 iyo 15aad ee xeerka ICJ. Haddii dal uu hor yimaad maxkamadda isagoo garsoore matala ku lahayn majliska dalkaas, waxaa loo ogol yahay inuu si degdeg ah u soo magacoodo garsoore matala inta dacwadda ay socoto. Qodobka 35 iyo 37 ee xeerka, kaas oo leh awood la mid ah kuwa joogtada ah. Ilaa hadda, Nairobi waxba kama qaban cabashooyinkii Muqdisho. Soomaaliya waxay madax bannaanideeda ku ilaalinaysaa nabad iyo diblomaasiyadeed, waana taas waxa ay uga cabatay cadaaladda caalamka, maantana kaga fogaanayso ficil iyo qolba wixii laga yaabo inuu wax u dhimi karo deris wanaagga. Ilaa maxkamadda ka gaarayso go'aan kama dambeys ah, ma qarsoona in dowladda Kenya qorshaysatay xeelado kala duwan. Waxaase la yaab leh in shakhsiyaad Soomaaliyeed ay u adeegsanayso hagardaamada dalkooda. Falsafi Faransiis ah ayaa hore u sheegay in cadowgaaga oo la isku jabiyo ay tahay dagaal qiimaha jaban. Kenya waxa ay ka shaqaysaa inay Soomaaliya isku jabiso, iyada oo ka faa'iideysanaysa 3 arrimood: khilaafka awood qaybsiga siyaasadda, 2 qarannimo xumada siyaasadda qabyaaladda, 3 adeegsiga jawaasiista iyo waddanka. Falanqaynta warbaahinta Kenya waxay muujinayaan in aqliga awoodda sheegashada madaxda Kenya ay si weyn uga falcelinayaan go'aan kasta oo lid ku ah, taas oo suuragal ka dhigayso inay sii jiidanto khilaafka labada dhinac. Shacabka Soomaalida waxaa u muuqda in Kenya ay raadinayso sidii xiriirka Muqdisho iyo Nairobi looga badbaadin kari lahaa inuu sii burburo. Walow la arki doono wixii dhab ah, haddana waxaa Kenya hor yaal 3 ikhtiyaar: inay faragelinta siyaasadda gudaha Soomaaliya faraha kala baxdo, 2 inay xiriirka labada dhinac dib ugu soo celiso halkii ay joogay Janaayo 2019, inay ku qanacdo xukunka maxkamadda ICJ hadba dhinaca u dhaco. Inkastoo aysan habboonayn in laga hor dhaco xukunka maxkamadda, haddana khilaafyada aan la xalin wax faa'iido ah uma lahan gobolka. Soomaaliya iyo Kenya waxay wadaagaan cabsi amni iyo rajo mustaqbal. Taas waxay micnaheedu tahay hagaajinta xiriirku wuxuu gacan ka geysan karaa xallinta dhibaatooyinka amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo dhaqan bulshada labada dal ee deriska ah. Dhinaca kalena, warbaahinta Kenya ayaa warbixin ka qortay waxa u muuqda bahdil ay dowladda Soomaaliya ku sameysay dowladda Kenya. Wargeyska The Standard ayaa qoray in Kenya ay muddo 2 bil ku dhow ay Soomaaliya ku sugayso jawaab, balse ilaa hadda aan wax war ah ka soo bixin, taas oo Kenya ay ka carootay. Jawaabta ay Kenya ay Soomaaliya ka sugayso ayaa la xiriirta kulan 3 bishii Abriil magaalada Nairobi ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda Kenya iyo Soomaaliya, Monica Juma iyo Axmed Ciise Cawad.
kulankaas ayaa sidoo kale la sheegay in labada dhinac ay isku raaceen dhowr qodob oo la diiwaan geliyey. Hase Kenya ayaa kadib qodobadii kulanka lagu diiwaan geliyey u dirtay Soomaaliya si ay ugu soo xaqiijisay inuu soo ogolaado isla markaana kadib loo shaaciyo. Si kastaba Soomaaliya ayaa ilaa hadda wax jawaab ah laga hayn sida ay Kenya sheegtay, waxaana Kenya ay ku andacoonaysaa in Soomaaliya aysan doonayn xiriir wanaagsan iyo wada hadal. Ilaa hadda ma cadda sababta Soomaaliya aysan u soo sixin qodobada kulanka, balse waxaa la rumaysan yahay inaysan ku qancin habka Kenya ay u dhigtay oo ay ku jireen waxyaabo laga wada hadlin. Sidoo kale dowladda federaalka ayaa marnaba ogoleyn in wax gorgortan ah ka gasho muranka biyaha, taas oo ay horey u sheegtay inay war ka sugi doonto kaliya go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Kenya ayaa walwal xoogan ka qabta kiiskan, waxaana khuburo dhinaca badda iyo diblomaasiyadda ay horey u sheegeen inay u badan tahay in Kenya looga guuleysto dacwadda haatan ka furan Hague. Dhinaca kale, aqoon-yahan Cabdulaahi Nuur Xaashi oo degan magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska ayaa carabka ku dhuftay in Kenya ay ogaatay kadib sahmin ay sameysay kheyraadka faraha badan ee ku jira biyaha lagu muransan yahay, sidaasina ay ku damaacinayso badda Soomaaliya. Aqoon-yahankan oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee Muqdisho ayaa tilmaamay in shidaalka dabiiciga ah ee ku jira biyaha uu ka fudud yahay marka la soo saarayo kan bariga, taasina ay qayb ka tahay waxa Kenya ay ku riixaya sheegashada biyaha Soomaaliya. ICJ ayaa la filayaa inay go-aan kama dambeys ah ay ka soo saarto kiiskan dhammaadka sanadka 2019 si ay ugu kala baxaan dacwaddaasi Soomaaliya iyo Kenya. hagaagi daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. Fadlan rukumo wararkeena si uu kuu soo gaaro. Jabuuti ayaa laga furay shaleemadii ugu horeysay oo casri ah. Waxaa laga furay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti shaleemo casri ah. Wasiirka dhaqanka, diinta iyo awqaafta ee Jabuuti ayaa xariga ka jaray shaleemadaas oo ah tii ugu horeysay oo casri ah oo weyn, isla markaana hab casri ah loo dhisay, waxaana laga hirgeliyay caasimadda Jabuuti. Wasiirka ayaa xariga ka jaray shaleemada cusub ee laga hirgeliyay magaalada Jabuuti. Shaleemada cusub oo ka kooban 6 hool oo midkiiba uu qaadayo 150 ilaa 170 qof, waxaa maalgeliyay maalqabe u dhashay dalka Istaga Imaaraadka Carabta. agaasimaha macadka fanka Jabuuti Nabiha Muumin waa beri oo munaasabada daafurka ka waxdashay waxay tiri, waxaan maanta joognaa furitaanka shaleemada ugu weyneed ee Jabuuti laga hirgeliyo, iyadoo oo baahi badan loo qabay shaleemo casri ah oo noocan ah, iyadoo oo ay shaleemooyinka hore dalka uga jiray ay sida shaleemada Odeon iyo shaleemada Paris ay meesha ka baxeen. Markii xariga laga jaray shaleemada, dadka munaasabadaas ka qayb galay waxaa lagu daawashiiyey filim iyaga oo si weyn ula dhacay qaabka shaleemooyinka ay u diyaarsan yihiin iyo sida quruxda badan ee loo dhisay. daawadayaal, halka warkaas oo idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka. Markana wararka dibadda. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi si uu la kulmo Kim Jong Un, waana booqashadii koobaad ee rasmi ah ee madaxweyne Shiinaha ka socda uu ku tago Waqooyiga Kuuriya tan iyo 2005. labadan mas-uul oo 4 jeer oo hore kulmay Shiinaha ayaa la rajeynayaa inay ka wada xaajoodaan barnaamijka nuclear-ka ee Kuuriyada Waqooyi iyo arrimo dhaqaalaha la xiriira. Shiinaha ayaa muhiim u ah Kuuriyada Waqooyi maadaama ay yihiin dalka ganacsiga ugu weyn ee uu kala dhexeeyo. booqashada Xi Jinping ayaa timid toddobaad ka hor shirka G20 ee lagu qabanayo dalka Japan, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. ugu dambeyntiina, boostood uu isku dilay nin caan ah oo lagu kala iibsaday $100,000. qorigii uu isku dilay farshaxantihii u dhashay Netherland Van Gogh ayaa la sheegay in lagu kala iibiyey $182,000. qiimaha ayaa waxa uu ka badan yahay 3 jibaar qiimihiisa caadiga ah. qorigan duuga ah ayaa waxaa laga soo gatay ganacsade. waxaa goob qoriga ka soo qaaday beeraley sanadkii 1965, halkaas oo la rumaysan yahay inuu isku dilay farshaxaniistaha. waxaa jira shaki ah sidii lagu xaqiijin lahaa qorigan inuu yahay midkii uu isku dilay farshaxaniistahaas caanka ahaa. markii ay ahayd 27 bishii Juulaay sanadkii 1890, farshaxaniistahan u dhashay dalka Netherland ayaa waxa uu aaday dhul beer ah oo u dhow tuulada Auvers-sur-Oise oo ku taalla waqooyiga magaalada Paris ee Faransiiska. waxa uu iska toogtay xabadka isaga oo adeegsanaya qoriga, sida ay wararku sheegayeen. warkii oo daawadayaal idinkaga imaanaya xilligan warbaahinta isha wararka waa naga intaa. fadlan haddii aad rabtid wararkeena iyo wararka caalamka iyo Soomaaliya kuwa ugu dambeeyaba, rukumo oo subscribe dheh gujiga mobilka si wararkii ugu dambeeyay uu kuu soo dhaco. tan iyo kulankeena kan xiga, sidaas iyo nabadgelyo.